waddanka Jarmalka waxa ka dhacday ceebtii adduunka gabadh Soomaaliyeed ayaa waxay mehersatay laba wiil oo Soomaali ah labada wiil kamid ah wuxuu deganaa gabadha tuulo dhow wiil kalena gobolka uu deganaa gabadhan ayaa labada wiilba mehersatay oo wiilkan kalena sheekh ugu yeedhay wiilkan kalena sheekh oo laba sheekh ay meheriyeen gabadha haddaba sheekadu soo socotay labadii wiil ayaa is ogaaday wiil kamid ah ayaa gabadha ka shikiyay baaray isla markaana sheekada soo ogaaday marka wiilkii tuulada u dhawaa ayaa sheegay oo wiilkaas 8 bilood qabay wiilka kalena 3 bilood buu qabay gabadhii markii dambe la weydiiyay sheekh kamid ah sheekhyadii markaa meheriyay weydiiyay waxay tiri labada ninba uu mehersay كل دينتين وما بنانا قبل Soomaaliyeed in laba wiil mehersato wax loo geliyay inuu ninku afar dumar ama saddex dumar uu mehersan karo hadaba sheekadan ayaa waddanka Jarmalka ka dhacday waxayna ku noqotay laf dhuun gasha Soomaalidii markaa Jarmalka joogtay